xaflad lagu taageerayo musharax madaxweyne Xuseen Cabdi Xalane oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay Hotel Delta ee magaalada Minneapolis. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasi oo isugu jira cuqaal, waxgarad iyo dhalinyaro. Hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa ninka maantaan madaxweynaha la doonayno Xuseen Cabdi Xalane inaan u duceeyo. waxaan leeyahay Xuseen Cabdi Xalane ilaahay baan ku baryaynaa, baryadanadana waa la aqbalaa. waxaan ku leeyahay ilaahay waxaan ka barinay inaad noqoto kii ummadda Soomaaliyeed u qabta gacanta. waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota. qabiil ma aha, deegaan ma aha muxuu ahaa dawlad goboleed ma aha, waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan ku fadhinaa halkan shanta Soomaaliyeed. waxaanu ka baranay qurbaha qofku marka uu rabo inuu shaqo raadsado wuxuu la yimaadaa khibradii iyo shaqo wanaagii uu soo qabtay. marka maanta aan u malayn maayo wasiir inaadan maanta booska buuxin kareynin. And ma'aha, it's not a small responsibility, it's a big responsibility, especially since we've been qurbaha inaan joognay 30 sano. waa dadka anoo kale oo ku koray qurbaha iyo waxaan sii dhalnaba waxaan rabnaa inay noqoto Soomaaliya meel aan ku laaban karno, meel aan future ku lahaan karno, meel noqota dadka la dooranay in lagu doorto waxay dadka u qaban karaan iyo bulshada aanan ahayn ruuxa uu yahay inta lacag uu haysta iyo ruuxa wata. marka waxaan leeyahay good luck and welcome to Minnesota. waxaan rabaa inaan runtii soo dhaweeyo caawa Minnesota ku soo dhaweyno, taageerno, codkeena siino, u muujino mataqaanaayay inaynu mataqaanaa taageersanahay walaalkeen wasiirkii hore ee maaliyadda 40 sano ku dhawaad nin u soo shaqeeyay hay'ado NGO oo government hay'ado caalami ah Xuseen Cabdi Xalane. wasiirku inuu ahaa shakhsigii ugu horeeyay, wasiirkii ugu horeeyay ee financial system Soomaaliya u sameeyay buu ahaa xilligii Sheekh Shariif. arin la dhayalsan kara ma aha, arin miisaankeedu ka culus yahay arrimaha kalena weeyaan oo aynu u baahnayn inaynu si gaar ah u sameeyno. talabaad amni darrada waliina haysataa. xilligii la bilaabay fikirkii la keenay ahaa in xoogaga xaq jirka ah laga saaro magaalada, baadiyahana laga soo riixo si meel dhaxal loogu keeno, magaalo madaxdan laga saaro. fikirka wasiirku dadkii curiyay oo ma garanaysaay cabinetka fikradahaas keenay inuu ahaa maqraatibaan. ugu dambeyntii waxaa isna hadal dhaxalgal ah ka soo jeediyey musharaxa madaxweyne mudane Xuseen Cabdi Xalane. anigu haddaan ku guuleysto agendaan leeyahay, manifestaan leeyahay, waa la publish garaynayaa, agendaan drive garaynayaa. agendahaygu waxaa weeye kow, dalkan waxaan haddaan isku caydhsanayno oo dowlad goboleedyadii mid federaaliya la isku haysto maba ahaba national agenda maaha, waxyaabihii masiirigaha ma aha. dalkan dowladnimadiisu hadda state Soomaali la yidhaahdaan nahay, laakiin dowlad ma nihin because ma buuxin karra shuruudihii. dowladda waxaa shardi ah dhulka ay sheeganaysa inuu gacanteeda ku jiro, ayada oo keliyana inay awood adeegsan karto, waxaan la yidhaahdo monopoly of violence. intay shabaab dhisanto dowlad ku dhisan oo dhul kontroosho oo ciidamo leedahay, maxkamad leedahay, de ma sheegan karto dowlad. inta Somaliland maqanto oo gooni isku taagtay ma sheegan karto dhulkii de gacanteena kuma jiro. inta ciidamo shisheeyo oo taangiyo wato annaga naga xoog badan joogaan ma sheegan karto dowladnimo. in marka waxaa mudnaanta koowaad oo aan aniga ajenday waxa weeye in kow shabaab xal loo helo, in la heshiiyaan qabaano. Asmar Cabdi Nuur, Nabad TV, Minnesota.